iyadoo ay socoto dardargelin lagu sameynayo manhajka waxbarashada dalka taasi oo faa'iido iyo horumar u leh waxbarashada Soomaaliyeed ayaa waxa manhajka waxbarashada dalka lagu soo kordhiyay maadooyin ku cusub ardayda Soomaaliyeed sida maadada tiknoolajiyada iyo ganacsiga ardayda qaarkood fikrad ahaan waxa ay qabaan in maadooyinkan ay yihiin kuwa ku culus faham ahaan maadaama ardaydu aas-aaska maadooyinkan aysan hore u soo qaadan waxaan jeclaan lahaa in maadooyinka fonforka in waxyar laga dhimo si amaarta anagana aan bundooyinka arno iyo heerka arno u tigsano maadooyinka kala dib kuma qabno laakiin hal maad una dib ku qabnaa faaf ilaa 6 ilaa 7 soo qaadana maadada tiknoolajiyada ah inta kala maadada waxa dib ku qabna malahan macallin Nuuruddin Maxamed Cabdulqaadir oo kamid ah macallimiinta wax ka dhigay iskuulka hoose dhexe sare ee Raagowgaas ayaa ka hadlay sida ardayda ay ula qabsan karaan maadooyinkan haddii aan dhinaca kale u fiirin caqabada guud ee ka haysato ardayda maadada tiknoolajiga waxay tahay ma haystaan base maxaa yeelay maadadan waxaa loogu talagalay baseka ardayga inuu ka fahmo qaar ka mid ah maamulada iskuulada waxa ay ku talinayaan in maadada tiknoolajiyada ay u baahan tahay in laga soo bilaabo aasaaska fasalka shanaad dhibaatada koowaad waxay tahay maadooyinka way badan yihiin maadooyinka dugsiga sare waxaa la gaarsiiyey ilaa 13 kan maado waxaa deris la ah ardaygu wuxuu ku sugan yahay caqabado dhaqaale mid amni mid caafimaad marka suuragal maaha sida saxda waxay ahayd in ay maadooyinkaasi ay ka soo bilowda base-ka oo maxay tahay ardayga aas-aaska looga soo bilaabo ay la socoto ardayga ay la korto Abdullaahi Cabdi Mire Tarmuus oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda maadooyinkan ay u leedahay ardayda iyo caqabadaha faham ahaan ka haysta ardayda caqabada koowaad oo leeyahay waxa waaye maadooyinkani aad u fara badan yihiin 13 maado yani fasal qaadi kara ma jiro adduunka waana ayaaba haddii loo qaybiyo sida caalamka loo yaqaano in fonforka loo qaybiyo laba qaybood qayb ah cilmi qaybna ah adabi wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ardaydu u ballan qaaday in imtixaanka sanadkan aan lagu soo dari doonin maadooyinkan cusub sida uu sheegay agaasimaha waaxda manaahiijta ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Soomaaliya Maxamed Xasan Mukhtaar marka haday sidaas tahay ardada waxaan ugu talagalnaa maadooyinkaas technology iyo businesska sanadkan inaan dhaqan gelino fasalka koowaad iyo fasalka labaad ee dugsiga sare laakiin fasalka saddexaad iyo afraad dugsiga sare in aan dhaqan gelin oo imtixaan inaan lagu qaadin